Gudoomiyaha maamulka degmada Maadai ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ka warbixiyay fatahaadaha webiga Shabeelle saameynta ay ku yeesheen tuulooyin hoostaga degmadaasi. Saalax Wiish oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in maamulka degmada Maadai ay ku howlan yihiin sidii wax looga qaban lahaa fatahaadaha, isagoona sidoo kale ku baaqay in gurmad loo sameeyo qoysaska ay saameeyeen fatahaadahan. Bismillah, waa su'aal aad muhiim ah. Awlan waxaan u mahadcelinayaa TV-ga dowladda Hirshabeelle dhammaan waa aad u mahadsantihiin. Waxaan rabaa su'aasha aad weydiisay waa sax. Degmada Maadai dhibaato badan baa ka jirto, caqabado badan baa ka taagan. wuxuu ka fatahay webigu markaan awalan aan sharaxo meesha la yiraahdo Iji Burwaay oo baale mataqaanaa wuxuu ka fatahay Kulmis Shiidla Bari Buurfuule Kiliga Shiinaha intaas uu ka fatahay. Fatahaadu marka waa saameyn badan bay geysatay. Waxaan u malaynayaa inaan marow hayno markii afraad ay saameyn weyn ugu yeelatay fatahaadan. Dadweynaha degmada Maadai aad ay u saameysay, waa naafaysay, waa galaafatay. Wixii mataqaanaa dalagahay oo ku yila degmada Maadai waa go'een, waa 400,000 oo hektar ayaa mataqaanaa go'day. waxaan rabnaa marka intaas oo dalagahaana ku tiilo maanta mataqaanaa bulshadan waxay joogaan cijee ku dagaalam waxay haayaan ma jiraan. waxaan rabnaa marka ka maamul ahaan maamulka degmada intay itaalkiisa waa ka shaqeeyay webigan in la buuro Iji ilaa meesha la yiraahdo Sabuun oo dhanka bariya oo inuu buuro oo ka shaqeeyay. waa inta meeloodo buqo go'dane haddana sidoo kale uga shaqeynayno habeen maalin ay u taagnaayeen odayaasha dhaqanka iyo maamulka. waxaan rabaa marka dhammaan intii isku daygaas ka qayb qaadato ka shaqeysay aad ay ugu mahadsan yihiin, waana u mahadcelinaynaa. waa isku daynay ilaa iyo xad intii mataqaanaa karaamkayna ee bulshada Maadai hadaynu nahay inaan xakamayno, laakiin waa xakameey weynay, waa qadar Rabbi. waxaan rabaa marka inta markaan uga gudbo inaan codsi aan u diro madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe. waxaan ka codsanayaa mataqaanaa dhibaatada degmada Maadai taalo waa baaxad weyn tahay, wax hadda la soo koobi kara ma ahan. wax maamulku oo mataqaanaa baahidaas waa baahi ka weyn. waxaan ka codsanayaa inuu mataqaanaa meel walbaba oo fiiriyo xaaladaha ka jira degmada. insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inuu codsigayno oo aqbalo bulshada Maadai oo dhan oo isku duuban anagoo jaw degdegana oo ka bixi doono. waxaan rabaa inaan mataqaanaa baaq iyo codsi ayagana aan u diro dhammaan hay'adaha ka shaqeeyo dowladda Hirshabeelle ama hay'adaha ka shaqeeyo dalka Soomaaliya ama hay'adaha ka shaqeeyo maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo macal gudoomiyaha gobolka. waxaan ka codsanaynaa inay mataqaanaa arrimankaas aan ka hadalnay oo dhibaatada oo ka taagan degmada Maadai in ay mataqaanaa jawaab ay ka bixiyaan. insha Allah taala waana rajaynaynaa. waxa waaye caqabaduhu marka waa iska caqabado noocaas ah oo aan la soo koobi karin. waxaan rabnaa marka inaan donoriska aan ka codsanaynaa inay mataqaanaa ay taas jawaab degdeg ay ka bixiyaan insha Allah taala. waxaan kala mataqaanaa baaq u diraa iyo codsi dadweynaha degmada Maadai kuwa oo mataqaanaa Ilaahay oo waxa u dhiibay qurba joogta la yiraahdo iyo kuwa dalka joogaba inay walaalahooda dhibaataysan ay mataqaanaa gurmad ay la soo gaaraan. waxaan codsanayaa qaasatan tuulada la yiraahdo Kulmis oo boqolkiiba mataqaanaa 5 kaliya ay guriyii ka soo hareen 95 ay biyo ku jiraan in gurmad degdeg la soo gaaro. waana mahadsantihiin. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, Hirshabeelle TV, Jowhar.